horta adduunyada waxa ka dhacay aafooyin culus oo dhaqaalihii curyaamiyey si guud bay taasoo dhacday innagu haddaynu nahay dowladda yara Somaliland aan caalamkuna aqoonsanayn ee aan meel la tacwiidda ka helin haddana dee may xumayn arrimaheeniyo sixir bararna ma dhicin oo ilaahay qadarkiisa raggii gacanta ku hayay sida wasiirka maaliyadda iyo baanka dhexe raggii gacanta ku hayay si wanaagsan oo maxaan ku idhaahdaa ayay hawsha u wadeen sida hareeraha dawladaha hareeraha inaga xiga sixir bararka culus ku dhacay dawladaha jiray ee culculus sidoo ugu dhacay deynoguma dhicin oo weynu sababtana de qadarka ilaahay ee ragga gacanta ku hayay ayaa lahaa aad bay qoladaas aanu u ammaan u siinayaa waa wasiirka maaliyadda iyo baanka dhexe ragga gacanta ku hayay ama ku haya marka la yiraahdo kobcinta dhaqaalaha waxay ahayd xoolaha nool ayaa inoo ahaa lafdhabar ayana dee waynaga xidhnaayeen muddaba meelaha ay wax ka imanayaan dee in aad ma garanaysa wax laga kobcin karo in la eego ayaa habboon raggii hore ee hadlayna si wanaagsan bay uga hadleen xagga beeraha markaan eego hargeysa wixii dhinacan ka xiga waxbaa laga soo saaraayo wax kastaba ha noqotee si wanaagsan baa wax loo beeraa oo culays bay saaraan laakiin dhinacan marka loo dhaqaaqo dalka bariga loo dhaqaaqo waana almost waa dhul oomane u badan beeruhu way ku liitaan ilaa bariga fog markaa waxaan odhan lahaa horta marba ilay tallaabada la qaban karaa la qabtaaye in dhaamam la sameeyo dhulkuna almost waa cidla oo haddii wax laga qabanayo dhul la odhanayo maxaan ku idhaa xoolaha iyo ha loo hayo ma aha xoolihii way iska yaraadeen 50 kilomitir baad soconaysaa ama 70 kilomitiroo neef xoolihii meeluu jooga ba arki maysid markaa in dhulkaa in la sameeyo meel biyo xidheenna la sameeyo dabeedna inta ku wareegsanba beero laga dhigo oo la beero oo aynu wax ka soo daaro waa arrin inagu habboon marka waxaan soo jeedin lahaa horta xaggaa in dhaamamka lagu dadaalo sida aynu dhaamam u samayn lahay dhaamamkaasoo loola jeedo wax soo saar si beeruhu iyo ma garanaysaa wax soo saarka ama qudradda fudud ay dee loo socodsiiyo ay u soo baxdo sida baradhada iyo basasha iyo wixii la mida toonta ka imanaya uun debadda uun ilaa Jabaan ka imanaya Jabaan oo la yidhi marhalku wuxuu la soo socdaa bilahaasaynu halkan dee kaga faa'iideyno uga soo bixi lahayd haddii culayska la saaro qodobka waxaan soo jeedinayaa dalku dhaamam wax lagu beero u baahan yahay awoodda ha la saaro taasi waa taa xagga maxaa ku idhaahdaa kalluun xoolaha nool xoolaha waxaan odhan lahaa anigu waraynu wafti meelihii aynu u diri jiray xoolihii caafimaad qaba oo haddana hakis la gelinayo aan wafti ha loo diro nimankii carbeed oo xoolaha inaga iibin jiray culays ma saaro oo waftiyo uma diro oo waxay ku dhacday sidan kama hawlgalo wafti ha loo diro nimankaa galaabixiya oo raggii afiiqiinay ee ariilayaashii hormuud ka yihiin iyo xukuumadduba hawsha ayada culays ha la saaro ayana sidaa ha loo raadiyo
wax sababahoo ay nimankaasi dee beri uun baa la yidhi xanuun baa la helay xanuunkiina dee beri hore u baxay oo xanuun ma jiro xoolaheennu maantay ugu wanaagsan yihiin waxaynu hayno dee taana waxaan odhan lahaa warqaabkaaha loo dhigo oo xooluhu siday u socon lahaayeen ha laga howlgalo kalluumaysiga baddeennu way buuxdaa aad iyo aad buu adduunka ayadaa iminka ugu maxaanku idhaahdaa waa badda ugu kalluunka badan bal goortaynu soo saaro way iska gaadhi doontaaye aynu la soo baxnay ka faa'iidaysanee weerar baa lagu hayaa weerar caalamkoo dhan baa ku jira chinays baa ugu daran oo gebigiisuba maxaanku idhaahdayey dee u saaraya dhilaandhilaa u saaraya war cadowgaa ku jira aan ka ilaalino oo xoojinno ciidanka badda ciidanku baddu ha noqdo ciidan ku filan baddeenna oo cadowga ka ilaaliya ciidanka ha la xoojiyo aan odhan lahaa oo gaadiidkii uu hal meel walba ku ordaayey ha helo culays ha la saaro wixii dee la kari karo ilaa waxaan la heli karayn waxaan la heli karayn laakiin waa in la ogaadaayo badda aynu ilaashannaa baddaa haddaynaan ilaalin ayadoo madhan unbaa la arki karaa oo hunguufti ah markaa waxa weeyaan taana waxaan leeyahay war culayska ha la saaro sidii loo xoojinayo ciidanka badda ee uu helayo dee laashashkii ciidanku raacayey ee dheeraynayey ee koone ilaa koone ka soo wareegayey ee qabanayey cadowga ku jira taana intaasaan ka odhanaya hadalka intaasaan ku soo gaabinaya horena dee aad baa looga hadlay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu